dabkani oo ahaa mid xoogan isla markaasina khasaare geystay ayaa waxa uu ka kacay mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala dhabarka dambe ee sayidka ee degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho waxaana durbadii goobta u soo gurmaday gawaarida dabdamiska gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho sida aad aragtaan hadda waxa la soo gabagabeeyay daminta dabkan oo si lama filaan ah ugu kacay meel kaam oo ay ku noolaayeen dad markaasi danyara isla markaasina iska duruufaysan gabi ahaan waxa burbur soo gaaray oo dhulka ku darsoomay hooyigii amaba bulshadii ay deganaayeen dadkan ku noolaa sida aad arkaysaan hadda waa la soo gabagabeeyay waxaan isku dayaynaa inaan la xiriirno aan la hadalno qaar ka mid ah maamulka degmada iyo kaamka markaana waxa ila taagan taliyaha hogaaminayay waaxda dabdamiska ee gobolka Banaadir ee hadda soo gaaray goobtan isla markaasina ku guuleystay taliya Shariif Xuseen taliya baarlamaanka Soomaaliya waxa faahfaahin laga siisaa dhibaatada markay dhacday sida ay soo gaartay sida ku imaatay dadku waxa dhaliyay sida ay dhimisay bismillaah anoo ku hadlaya magaca waaxda gurmadka degdeg gobolka Banaadir dabka waxaana soo wargeliyay booliska oo naga dhaxeeyo wada shaqeyn oo taagana haween iyo maalin gurmad inaan u gurmadno dadka masaakiinta qof walbo mas'uul ah qof walbo masaakiin ah inaan u gurmadno dadka hadoo qabsada iyo dab hadoo qabsada waa ujeedaa dabka meesha oo ka kacay ilaa iyo dhowr guriyooda ku gubatay ma la sheegi karo khasaaraha ilaa hadda waxaan ka sugaynaa maamulka degmada khasaaraha inay noo sheegaan aan ka qoran reportka inta badigiis dabka xoogiisna waa badbaadinaa alxamdulillah ilaahana maadaas iskale dabka waxaa dhaliyay koronto dabka khasaaraha waxa geystay koronto waa damintiisa waa ku guuleysan waan u jeedaa xeendabka uu leeyahay dabka guriyaha ku wareegsan inta guri oo ka badbaada dadkina shacabka oo guriyaha degnaan way ka shaqeeyeen waxay oo shaqeeyeen isla markii dabka oo qabsaday dabku waxay ku ekayeen goobta oo ka kacay ma wax khasaare nafeed ama jiraan qaar ka mid ah dadkii guryahooda dabkaasi uu ka basbeeliyay ayaa goobta kula hadlay telefishinka Somali Cable iyagoona sheegay in aysan haysanin meel kale oo ay ku hoydaan oo gabaad ay ka dhigtaan masraf Sheekh Yuusuf waxaan deganaa meeshan waxa iiga gubtay hanti fara badan waxa iiga furnaa dukaan waxa ii yaalay firinjeer aan jalaato iyo wax isku sameeyo aga badan oo kii lagu seexanayaa sariirihii joodariyaashi wixii dhar guriga yaalay horta guriga bilkuliyan ba hal xaba kama badbaadin iyadoo waxba ayna ka badbaadin haddana waxa ii si dheerba waxyaabo aan ilmaha nolol maalmeedkooda uga raadi jiraa meesha iiga basbeelo marka dabkii sidii uu nagu soo galay aniga wixii ciyaal ahaa hadaan la sii cararayba guriga meel alla meesha duleesho holac waa ka soo galay sidaas ilmahaygaan la cararay gurigana gurmad iyo dadka xaafadda yimaadeen biyo iyo waxba lagu shushubay maanta la joogo kadib la dabdamisa yimid dabkii sidaas uu ku dam marka hadda waxaan idin sheegi lahaa wax badbaaday dharka aniga haystaan hadda dirac kaligiisaan wato waxaan wato dhan guri kale hadda layga siiyay ma garba saarnaan markaan guriga ka baxay dabka kulley waa un macnaheedu qof dad bini aadan meesha ku wada nool waaye kulley bulshikayaasha waxyaalahaas inay noolaayeen baa dhici karto marka dabeel zaa'idna waa jirtaa marka saa darteed wixii waa goog iyo bahalkii iyo jiingad waaye marka wixii baa isa saameeyey dabeeshaas waxaan saamaysay maana shakhsiyaad halkaan ku eedayno oo caddaan ah ma jirto waa qadar alla weyn tuuga noo badbaadsan tuuga bare dhar ma noo badbaadin dhar intee yaala yaa bixi dhar أنا وحنا رواي معناها الماء وحي أو معناها أو تويسنا يدعم على كجيران كله يوم مسلم وحي تراوا سكرها بعدي dabkani oo dumintiisa lagu guuleystay kadib waxa goobta warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha xaafadaasi iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho waa dabkii saddexaad laakiin midkaas uu noo saameeyay dab noo saameeyay wali ma soo kicin aniga caawa waxa iftiinay amba ee muuqda dadkaas caawa halkaas 10 qoys oo halkaas caruurtooda daadsan yihiin dhammaan inaan ka qayb qaadan doono fayska koobaad waxaan samaynaynaa anaga caawa hool dhisan oo hay'adu noo dhistay ayaan dadka caawa isugu geey doonaa halkaas baan salaa u dhigi doonaa dhammaanna ilaahay bay wax ka sugayaan maamulka degmada Holwadaag waxay wax ka sugayaan gobolka Banaadir waxay wax ka sugayaan ummadda Soomaaliyeed markaan ku soo baxnay nasiib wanaag markiiba gurmad ayaan dirsanay intii gurmadku ka imaanayay dadka deegaankana gacan weyn ay geysteen inuu dadka damo waana ku sinay
nasiib wanaag waxaa ilaah subxaana watacaala ugu mahad celinayaa in dabkii markiiba lagu guulaystay in la damiyo. dabkani waxaa yeeleeyey 10 qoys ayaa ah kii saddexaad oo ka kaca isla kaamkan bulsho ee ku yaala dhabarka dambe ee sayidka iyadoona maamulka ay sheegeen in caawa markaasi ay gabaad ugu dhigayaan meel ay horay u dhisteen oo ay ugu talagaleen in markaasi dadkii ku waxyeelooba amaba ka burburaan ama dababka noocan oo kale ay soo gaaraan isla markaasi ay kaga maarmaan caawana halkaas ay jiifanayaan sida ay maamulka sheegeen. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ee Muqdisho, Somali Cable TV.
Ustaad Cabdicasiis Caagane sidoo ma santahay inta barnaamij midkaan mid aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo wa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh